markii ugu dambeeyay sidoo kale weerarkii bahalnimada ahaa ee kooxda al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala kiiloomitir 4 magaalada Muqdisho. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ilaa xalay iyo ilaa maantadan waxay ku howlanayaan sidii kooxda argagixisada al-shabaab looga saaro hotel Xayaad oo ku yaala kiiloomitir 4. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku guuldareystay in al-shabaab ay ka saarto deegaanadaasi walow ay jiraan in ciidamadu ay wali ay wadaan howlgalka wala ay jiraan in ciidamadu ay ku guuldareysteen in al-shabaab laga saaro meeshaasi. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo howlgallo weyn ka waday muddooyinkii dambe ee hotelka dhexdiisa oo laga maqlay dhawaaq rasaas aad u xoog walow ay xalay 2 saac ay kooxda al-shabaab ay qaraxyo iyo sidoo kaleba ay galeen rag hubeysan gudaha u galay hotel Xayaad. wararka rasmiga ah haatan soo gaaray waxay si rasmi ah u tibaaxayaan in ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gabi ahaanba ku guuldareysteen isla markaana ay ka saari waayeen al-shabaab oo weerar culus ku arkaysa hotel Xayaad oo ku yaala kiiloomitir 4. laamaha ammaanka ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya wali kama aysan halin khasaaraha kala duwan iyo sidoo kale dadka ku dhintay dadka ku dhaawacmay hotel Xayaad oo weerar culus uu ka socday muddooyinkii dambe. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la socon karaa ciidamada ugu tayada xun gobolka Banaadir ay yihiin maadaama ay al-shabaab oo gudaha u gashay hotelka ay ka saari waayeen. dhawaaq rasaasta ayaa laga maqliyay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho iyadoo ay jiraan in hoobiyaal lagu garaacay xaafado kamid ah xaafada Xamar Jajab oo ka agdhow nawaaxiga hotelka. waxaana jira dad shacab ah oo wax ku noqday hoobiyaasha lagu garaacay hotelka waxaana khasaare la soo gaaray hantiyada hotelka wada ay jiraan in ciidamadu ay rabeen in ka saaraan al-shabaabta soo weerartay hotel Xayaad oo isla markaana ku guuldareysteen in al-shabaab ay ka saaraan gudaha hotelka Xayaad oo ku yaala kiiloomitir 4. khasaare kala duwan ayaa soo gaaray hotelka wada ay jiraan ciidamadu ay hoobiyo weyn ku garaaceen hotelka wada aysan ilaa haatan aan war rasmi ah laga hayn inuu soo afjamay dagaalkii halkaas ka socday. waxaana jirta in wargabi ahaanba ay magaalada Muqdisho qaybo kamid ah ay xilligan tahay badow walow dadka shacabka loo diray fariin ku aadan inay iska ilaaliyaan nawaaxiga hotel Xayaad inkastoo jiraan qaraxyo fara badan oo ku tirsan qaybo kamid ah hotelka. gudaha markii waxa uu galay ciidamada ka tirsan dowladda federaalka oo hogaaminayo taliyaha ciidanka gobolka Banaadir taliya Saadiq taliya Farxan Qarole iyo ciidamada fara badan oo taabacsan ayaa gudaha u galay hotelka. waxaana jirta in ay haatan joogu u degan yahay walow aan si rasmi ah ciidamada aysan u sheegin weerarka iyo cidda geysatay iyo waliba sidoo kale khasaaraha kala duwan ee soo gaaray dadka shacabka ah ee deganaa hotelka. waxaa la sheegay in deganaa dad ka tirsan madaxa ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaarkood la sheegay in goobta lagu khaarijiyay isla markaana ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan dadka shacabka ah aan la wadaagin xog rasmi ah iyo sidoo kale weerarkii al-shabaab ku hagaasay hotel Xayaad oo ku yaala nawaaxiga kiiloomitir 4. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa noqday ciidamo howlgab ah walow ay ciidamadu ku guuleysan waayeen in isla markiiba la soo afjaro kooxda ay weerar ku qaaday hotelka iyadoo ay jiraan in ay ku jireen ku dhawaad ilaa 4 saacadood isla markaana halkaas ka dagaalamayeen ugu yaraan 6 nin oo la sheegay inay wateen qoriga loo yaqaan AK47 iyo sidoo kale boobooyinka laga tuuro gacanta. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gabi ahaanba ku fashilmay in weerarka al-shabaab ku qaaday hotel Xayaad in saacado gudahood la soo afjaro. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan waxay wadaan wali hawlgallo lagu xaqiijinayo in ammaanka magaalada Muqdisho walow ay jiraan gabi ahaanba bandoon tahay wadada weyn ee halbowlaha ah ee lambar 4 loo yaqaano oo ah wadada ugu shacabka badan Muqdisho isla markaana inta badan ay adeegsadaan shacabka kala duwan ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. afayeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa isna waxa uu ka hadlay ismarkaa dareenkiisa oo ka dhibtay weerarkii lagu qaaday bahalnimada al-shabaab waxaana uu sheegay in ay ciidamadu ku guuleysteen weerarkii ay al-shabaab ku soo qaaday ismarkaana la baaba xoogan loo gaarsiiyay iyagoo ciidamadu ay sheegeen inay soo afjareen macada warka rasmiga ah ee dowladda ka soo baxaya iyo sidoo kale dhimashada dhaawac ka dhashay weerarkii bahalnimada ee al-shabaab ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala nawaaxiga kiiloomitir 4 gaar ahaan wadada aada airportka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. dad shacab ah ayaa jira in iyagu dhibaatooyin badan soo gaareen isla markaana qaarkood dhaawacmeen qaarkoodna ay ku geeriyoodeen guryahooda isla markaana u galeen hoobiyaha ay ku garaaceen hotelka ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. laamaha ammaanka ee Muqdisho ayaa xilliga waxaad moodeen yihiin gababsi isla markaana ay yihiin dad fadhiida oo aan waxba ka qaban karin ammaanka guud ee caasimadda.